dunida aynu ku nool nahay waxaa ka jira 195 wadan in ka badan 50 dal waa dalal muslimiin ah kolka laga reebo Turkiga iyo Iiraanna inta kale waxa ay ka dambeeyaan dunida kale tobaneeyo sano kolka laga hadlayo sayniska iyo caafimaadka bal ka waran ummadii akhriska iyo horumarka ummadii aqoonta iyo dhigaalka inay noqoto ummadda ugu liidata caalamka dhan waliba bal suurayso ummadan oo looga dambeyn jiray culumta xisaabta fiisigiska caafimaadka engineerinka cilmiga bulshada iyo waliba xidigiska inay noqoto ummad caalamka oo dhan laga takooro kadib kolkay iyaga dhaxdooda istakooreen deedna dhalintii la rabay inay carunkan iyo ceetan ka qaadaan caalamka islaamka kolkii ay tageen wadamadii reer galbeedka inay iyagu ku sarqaameen ilbaxnimadoodii deedna ay bilaabeen inayba ka shakiyaan diinta islaamka iyagoona dib u dhac muslimiinta ku eedeynaya diinta islaamka haddaba barnaamijkeena maanta ayaan ku lafaguri doonaa eedeynta ay dhalintaasi u soo jeediyeen diinta islaamka iyo weliba wax dhabta ah ee sababay dib u dhac ummadda islaamka ee soo dhawaada saaxiibayaal ummadda islaamka waxay xukunka caalamka iyo waliba awoodda adduunka ay ka maqan tahay muddo 100 sano oo xiriir ah marnaba caalamka guud ahaantiisa muddadaasi 100 sano ah lagama helin deganaansho dhameystiran waxaba taa ka sii daran inay reer galbeedku yihiin aasaaska iyo hurriyaasha dagaalkii ka dhacayay 100kii sano ee la soo dhaafay adduunka laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka kii qabowaa kii Ciraaq kii Afghanistan kii Soomaaliya kii Yemen kii Suuriya ilaa iyo kan haatan socda ee Filistiin haddaba raggii waxaas oo dhib ah dunida ka sameeyay ayaa haddana ina soo hor fariistay iyaga oo raba inay naga dhaadhiciyaan caalamka sababta uu degi laayahayba inay tahay islaamka hadda ogow awoodda islaamka waa awood dhimatay 100 sano ka hor waxayna ku nabayaan weli qalqalgelinta caalamka sitaa waxaa ka sii daran in dhalintii rumaynayaan sheegashadooda deedna ayba iyagii soo horkacayaan iyagoo leh dib u dhac maanta caalamka islaamka ka jira waxaa sabab u ah diinta islaamka haddaba kolka laga hadlayo diinta islaamka waxaa sal iraad u ah kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeena sallallahu calayhi wasallam ee balaan isha marino maxay ka yiraahdeen cilmiga iyo horumarka diinta islaamka dhab ahaantii iyadaaba sayniska iyo cilmiga dhan waliba horumarkiisa dhiirigelinayso oo waa sababta uu had iyo jeer quraanka inoo dhaho war miyaadan fikireen war miyaadan garasho lahayn war miyaadan tadabureen waliba qofkii arintaas sameeya diintu waxay inoo sheegaysaa inuu Allah subxaanahu wa ta'ala u dhawaanayo oo qofka inuu fikiro waaba astaan lagu yaqaan dadka muuminiinta sida ku suuratul Imraan aayadeeda 191 xitaa quraanka dhexdiisa ayaaba qayb sayniska kamid ah lagu dhiirigeliyay sida suuratul Nahl aayadeeda 66 oo Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu inagu yiri nimcooleyda waxa idinkugu sugan cibr qaadasho oo aayadaasi waxay dhiirigelinaysaa barashada cilmiga xoolaha suuratul Baqara aayadeeda 259aadna waxa uu Allah subxaanahu wa ta'ala ku yiri cuseyrow bal fiiri lafahaaga iyo biyahaaga isma aynan bedelin oo aayadaasi waxay dhiirigelinaysaa barashada cilmiga lafaha ee loo yaqaan osteology suuratul mu'miniin aayadeeda 14aad waxay ka hadlaysaa maraaxisha uu qofku maro laga soo bilaabo manida ilaa uu noqdo qof dhameystiran oo waxay dhiirigelinaysaa aayadaasi barashada cilmiga embryology-ga suuratul Ankabut aayadeeda 20aad waxay dhiirigelinaysaa safarka iyo cilmi baarista suuratul Zumar aayadeeda 21aad waxay dhiirigelinaysaa barashada cilmiga biyaha ee loo yaqaan hydrology suuratul Rum aayadeeda 42aad waxay dhiirigelinaysaa cilmiga archaeology-ga oo lagu daraasayo raadadkii ummadihii hore suuratul Ra'd aayadeeda 12aad waxay dhiirigelinaysaa barashada culumta jawiga iyo saadaasha hawada ee loo yaqaan meteorology suuratul Qaashiya aayadeeda 20aad waxay dhiirigelinaysaa barashada cilmiga qaab dhismeedka dhulka ee loo yaqaan geomorphology suuratul Daariq aayadeeda 5aad 6aad iyo mideeda 7aad waxay dhiirigelinayaan culumta lagu daraasayo xubnaha taranka ragga iyo midka dumarka ee loo yaqaan andrology iyo waliba gynecology suuratul Anfal aayadeeda 6aad waxay dhiirigelinaysaa in ummadda islaamka ay samaysato agabyo iyo aaladaha difaaca intii ay awoodaan ilaa iyo haatan waxaynu ku jirnaa oo kaliya aayadihii quraanka oo iyaga ayaaba bad ah sidoo kale haddii aynu fiirin axaadiista waxaynu gelaynaa badweyn kale oo dhiirigelina ah oo ummadda islaamka ku dhiirigelinayo barashada qaybaha kala duwan ee cilmiga se waxa inoo soo koobaya axaadiistaas oo dhan
xadiiska uu nabigeena sallallahu alayhi wasallam inagu yiri raadinta cilmiga waa mid waajib ku ah qof kasto muslim ah iyo qof kasto muslimad ah haddii aad isweydiinayso ma jiraan dhalinyaro dhiirigelimahan qaatay misana ku liibaantay dabcan waxaa jira kumanaan muslimiin ah oo cilmiga diiniga iyo midka maadiga ahba meel sare ka gaaray waxaana ka mid ah aqoonyahankii aasaasay sayniska loona yaqaano aabbaha aragga ee xasan ibnu haytham waxaana jira muuqaal aan 3 sano ka hor ka diyaarin aqoonyahankan ee ka daawan linkiga ka soo muuqanayo qaybta sare sidoo kale waxaa ka mid ah aqoonyahanadii muslimiinta ahaa ee dunida sayniska wax ka bedelay misana taariikhda caalamka baal dahab ah ka galay Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi oo loo yaqaan aabaha al-Jabra ahaana ikhtiraacihii tirada eber ibn Sina dhakhtarkii iyo waliba filosoofkii mucjisada ahaa ibn Khaldun aabaha cilmiga bulshada Jabir ibn Hayyan dhidbo taagihii cilmiga chemistry-ga ibn Nafis aqoonyahankii daaha ka roga wareega dhiigaraha aadanaha sidoo kale waxaa jira 10 kun oo muslimiin ah oo daah qaaday culum ilaa iyo haatan la isticmaalo dhamaantoodna waxa ay ka sinaayeen inay dhiirigelin ka helayeen diinta islaamka haddaba dadka ku doodaya diinta islaamka ayaa dib u dhaca adduunka sabab u ah bal hal weydiiyay cilmiga halka ay ka soo qaateen waayo aqoonyahanadii saynisyahanadii iyo waliba filosoofiyadii ayaa baqar in islaamka qayb weyn ka qaata horumarka aadanaha sida Martin oo yiri haddii qarnigii 11aad la qaybin lahaa Nobel Prize gabi ahaanba muslimiintu way wada qaadan lahaayeen fiisiksyankii weynaa ee Pierre Curie waxa uu isagana yiri muslimiinta Andalus waxaynu ka helnay 30 kitaab oo dhaxal ah atamkiina waynu kala qaybinay ee dhab ahaantii haddii aan nus milyan buu ka heli lahayn kol hore ayaan galaksiyada dhexdooda dawaafi lahayn sidoo kale Kootah oo ah siyaasi iyo qoraacan ah waxa uu yiri qofnaba xeerarkii Nabi Maxamed wax ka hormarsan lama iman karo Yurub inkastoo ay nasiib wanaag hormartay haddana qaanuunadeeda kolkii loo fiirshay qaanuunada islaamka waa mid aad u nusqaan badan inaga oo haysano ilbaxnimadii Yurub haddana kolkii loo fiirshay ilbaxnimadii Nabi Maxamed jaranjarta haddii uu qaybta dambe kaga taagan yahay innaga hadda ayaan lugtii ugu horeysay saarnay sidoo kale Edward Gibbon oo ah taariikhyahan waxa uu leeyahay diinta islaamka xaqiiqatan waxaan oo dahqaad ah oo caalamka laga sameeyo oo dhan waa diin ka sareyso sidoo kale Prince Bismarck Napoleon Bonaparte Carley Dostoevsky Gandhi Tolstoy iyo waliba kuwo badan oo aan muslimiin ahayn ayaa amaanay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxayna wada qireen in diinta islaamka diimaha kale iyo waliba aragtiyaha falsafooyinka oo dhan ay ka wada horumarsan tahay xitaa balfiiri taariikhda dhabta ah ee islaamku dhidabada u taagay taariikhdu kulka ee 600 ee miilaadiga Carabi waxay ku sugnayd jahli aad u ballaaran waxayna noolaayeen xilli aynan lahayn askar siyaasiyiin mufakkiriin iyo qoraayo oo waxay ahaayeen bulsho oral ah qaab dawladeedna ma aysan lahayn waxayna ku noolaayeen hanaan qabiileed si islaamku kolkii uu yimid isla qoladii isla meeshii isla ragii jahliga u indha tiray ayaa daaqada ka saaray labadii boqortooyo ee Room iyo Faris heer waxa ayna gaareen Morocco ilaa Pakistan ay furtaan nabiga sallallahu alayhi wasallam kolkii uu geeriyoodana 100 sano kadib waxaa la furtay Spain askartii uu islaamku abaabiyana ilaa xeebaha Faransiiska ay gaareen oo qofnaba horumarkaas iyo islaamka kalama qaadi karo laga soo bilaabo xilligaas ilaa qarnigii 17aad reer galbeedku islaamka ay daawanayeen haddaba qofkii yiraahdo islaamka ayaa dib u dhaca caalamka sabab u ah waa qof aanan aqoon taariikhda dadka qaar ay yiraahdo haddii islaamku ummad soo galo ummadaasi waxay ku sugan tahay dib u dhac dhab ahaantii waa sida caag hadlay oo kale waa dhab inay muslimiinta saynis ahaan siyaasad ahaan iyo waliba bulsho ahaan ay ka dambeeyaan caalamka kale si dib u dhacaasi sabab uma ahan islaamka ee nafafkeena ayaa sabab u ah waayo kolka hore waxaan weynay adoonnimadeenii kadibna xukunkii ayaan weynay diintii ayaan gadaal ka tuurnay kolkaasaan caalamkii ka dambeynay muslim ahaan waynu soomnay laakiin kama aanan tegin ribadii waan salaadnay laakiin dhiigii ayaan fududeysanay waxbaan baranay si cadaaladii ayaan ka tagnay innagoo sheeganayna in quraanka lagu sheegay qabiilka ayaan misana qabyaaladii ku dhaqanay diin ayaan isku nikaaxsanay laakiin aroos islaamka ku haboon ma aanan dhiganin waan guursanay sasinadii iyo xumihii kama aanan tegin quraanka waan aqrinaa oo waan aaminsanahay laakiin kuma dhaqano oo waa sababtii uu yiri Umar Hayyaam oo ah xisaabyahan rabixiye taariikhyahan filosof iyo waliba gabyaa hadalkiisi aad ku cajiib ka ahaa gacanna dhalo qamri ah gacanna kitaabka quraanka xalaal ay ku jirto xaaraan adduunkan wada qabyada ah muslimiin dhameystiran ma tihiin gaala dhameystiran ma tihiin
waxaa macquula qofka inuu isweydiiyo okay innaga waa xumaanay ee gaaladii xumeed sidee inaga nooga sara martay oo maadaama aan isla xumaanay maxaan isula liida weynay sadab ahaantii su'aashaasi waxa inooga jawaabay mufakirkii weynaa ee Maxamed Cabdaah oo waxa uu yiri waxaan ku arkay Yurub islaam bilaa muslimiin ah wadankaygiina waxaan ku arkay muslimiin bilaa islaam ah oo dadka Yurub jooga waxna ma qiyaamaan awaamirta iyo akhlaaqdana waa wada ilaaliyaan si nasiib daro diinta islaamka ma haystaan halka dadka muslimiinta ah aynan u hoggaansamaynin arrimaha islaamka qiyaanada dhaca boobka iyo dhiiguna agtooda waa ka caadi sidoo kale nin Turki ah oo la oran jiray Maxamed Akif Ersoy ayaa yiri kolkii reer galbeedka wax laga weydiiyay dhulkooda waxaa ka jira diimo sida shaqadeena oo kala ah iyo shaqooyin sida diimaheena oo kala ah oo waxa uu la jeeday dadkaasi diimaha way ku liitaan sida aan shaqada ugu liidano dadkaasi kolka aynu salaada subax u soo toosayno ay shaqadooda u toosaan oo shaqada ay xoog iyo diiradda saaraan sida aan diinta difaaceeda xoog u saarno oo kale mufakirkii weynaa ee Daha Xuseenna kolkii wax laga weydiiyay xaaladda ay ummadda islaamka ku sugan tahay waxa uu ku jawaabay ummad faqriga duco kula dagaalamayso aan ficil la iimaanaynin ummad fasahaadka kula dagaalamayso ka hadlida minbarada ummad shaqo la'aanta kula dagaalamayso guur iyo caruur fara badan in la dhalo dhab ahaantii ummadaasi waa ummad gooday oo dhimatay meedkeedana karaamo waxa ugu filan in la aaso waa dhab muslimiinta caalamka oo dhan inay biyo fariisato caajis iyo quus waxayna ku qanceen nolosha aadka u liidato iyo inay gaalada had iyo jeer galgaal weydiistaan halka gaaladu ay aad u dadaalayaan had iyo jeerna suuqa sayniska iyo tiknoolajiyada ay wax cusub ku soo kordhinayaan marnaba ilaahay hoojimayo unkiisa qof kamid ah oo si dhab ah u dadaalayo waa sax oo waan rumaysanahay inay soo noqon doonto guushii midnimadii iyo weliba horumarkii islaamka uu lahaa shay waxaa middaa kaga kalsooni badanahay inuusan caalamka islaamka lugihiisa ku istaagi doonin ilaa ay muslimiinta saddex jibaaraan dadaalkooda oo ay isku duubni dhab ah la yimaadaan mooyee haddii ay middaa dhici weydana adduunka kolleyba kuma guulaysanayno ilaahay aakhiraha inagu wada guuleeyo ugu dambaynna haddii aad halkan nala soo gaarteen la jirkiina farxad ayay noo tahay saaxiibayaal inta aan barnaamijka xigay kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim